ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا وان كلام مقنعنا إنسان قال هذا مركز 10 كمان تحنك بلاغنا دوال إدمو adding final es to words that end in y قابك أنا قدر لهم es أريد كل ما نيو y أما ياد سالي the baby cries a lot داندا so baby cries a lot so the baby now baby ends in y anuga the baby anuga cries a lot add ayu uya so baby how am I going to make it babies ama an s ugu dari kara so final es marka la dhaho waa erey kale I mean final s oo ereyada ku dhamaanaya y dhamaantood so here I can say cry cry so shayga marka waxaan u fiirinaynaa laba mid the consonant part and the vowel part hadday tahay consonant part hadday vowel part tahay qaabka u kala saari lahayn for example haddaan eraha cry cries so cry y-da waxaa ka horeeyo a consonant then fly flies y-da waxaa ka horeeyo consonant l so here waxaan dhahayaa marka cry ooyin cries ooyay fly waa duulid flies duulay okay consonant waxaan ku daraynaa y so haddii marka y-da uu ka soo horeeyo ereyga ka soo horeeyo ama ereyga aan ku darayn uu yahay consonant y-daas waxay u bedelmaysaa I kadib waxaan ku daraynaa es so like for example y-da waxaa ka soo horeeyo r waa consonant waa ereyada yani vowels maahane consonant vowelka waxaa la yidhahaa shanta a e i o u inta ka soo harta 21 ka soo harta waa consonant waa sidaan hore u sheegay yani cashir hore ugu soo baranay so marka hadduu y ku dhamaanayo erey ka hore uu yahay consonant always y-dan waa la bedelaya waxaa lagu bedelayaa I es lagu darayaa laakiin qaabkan kale aan fiirina marka pay y-da waxaa ka soo horeeya vowel a e i o u mid ka mid ah so waxaan sameynaynaa y-da sideeda ayadoo iska ayaan s gada lagu dari doonaa like pays enjoys macnaheedu marka waxaa waaye vowel a vowel o plus y waxa waaye you just add s bas ku daraysaa nothing else example now let's now do a little practice for example buy and often Ghazi dash too many things so marka tan practice-kan wuxuu la socdaa cashirkan ka soo gudbinay hore so Ghazi often buys too many things often buys so buy y-da waxaa ka horeeyo vowel u so s-an ku darni buys laakiin often buys dan qofka hadduu isiraantay ka imaad oftentan waa cashirka hore aan soo qaadanay ee ahaa frequency adverbka laga hadlayaa she dash nice things she dash nice things so say always so say y-da waxaa ka horeeya vowel so she always says nice things so inta s waxaan ugu darnay we have a vowel here her father dash about her often worry da marka here we have r that's consonant so maxaan sameynaa you change y to I and add es her father often worries about her aabaheed si yani dhif uga cabsadaa worries often yani mar walba u walwalaa worries about her then let's now see the irregular verbs has does and goes goorma adeegsan karnaa ereyga ama verbka ama singular verb in singular form irregular has does and goes so the man has a brown coat ninka wuxuu wataa coat brown ama jacket brown so haddaan idhaha I have a hat she has a hat tabar waxay ku tusinaysaa she he it third person pronoun inay qaataan has I do so hadda has waan ka dhamaanay I do exercise he does exercise so she
he, it. maxay qaadanayaan does. So marka waxaad ogataa has and does markaad qaadanayso waxaad u fiirinaysaa the cons. I mean waxaad isticmaalayso for example the first person, the second person, and third person. So she, he, it, they are all third person pronoun. Why? Like in first person, I have, we have, they have. So first person pronoun ka have ka soo qaadanaya meel la sameyn baxayo. Like in third person ka or she, he, it waxay qaadanaan has. Okay. We go to the gym. We go to the gym. Anaga dhammaanteen waay. I go to the gym. We go to the gym. They go to the gym. So first person, second person, in plural and in singular, go way qaadan karaan. Like in third person marka idhaha he, she, it. Maandaya he goes, she goes, it goes. Third person pronoun always wuxuu qaadanayaa she. I mean goes. She goes, he goes, it goes. Then the irregular form kwa kan. Have changes to has. Do changes to does. Go changes to goes. So hadi I have, he has. I do, she does. I go, she goes. Okay. Do and does. George does yoga every day. George does yoga every day. So George dan ubadala pronoun qanqanaya he. He does yoga every day. He does. Zuli does for a walk on Sunday. She goes. She always does homework. She always has homework. She always has homework. She has. Tani kuna tudaba xisala waxaan kaga tagayaa sida ay nabadina. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.